السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادة ملكستا جوكتان برنامج كني مؤكتهي وحينان إن شاء الله تعالى كسر قادن دونا لبا الرمودا آد معجسة ودوني دو أردن كيابيي لبدنا الرمودنا وحا كورمي حبيبك مصطفى صلى الله عليه وسلم مدلق جوغو كنيا فربق الله سندوت كهر وحوصى صار إمام البخاري حديث كان أورنا يا أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا هريرة إله الرالها كهذا وحكور يا رسولك الله نحريس ينبدل يا إله كركيس هيا لينو يري إذا وقع الذباب في أنايا أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح هدي متكين ويلكيسا وكدع دقسيقو هبقوسي الدقسيق كلجي كدونها كسو سارو فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء محايا لبدا بالود دقسيقا مد وحا أهادي دو ككلنا وحا أهادي عذر حديث كان عجيب أي النبي قوحو تلماميا إن دقسيقا دولا ويلكا كدعاما ويلكا بيها ما عنتوينكو أي كجيران إنو هديا جرالا وهو الرئيسين يوبالكا وعذركا وكواتو dabadeedna wuxuu inoogu nasteexanayaa oo inoogu waaninayaa in haddii ayba dhacdo duqsigaasi waa inaad quusisaa oo aad gelisaa weelka uu ku dhacay si labadiisa baallood markaa ay u taabtaan meeshii ama weelkii gudihiisa kadibna waxa ka soo saaro arrintan mucjisada ayaa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ummadiisa faray muddo laga joogo 1400 sannadood haatanna iminka casrigan iyo qarnigan aynu noolnahay waxa ay culimmada ugu waaweyn ee sayniska iyo dhakhaatiirtuba ay ogaadeen in duqsiga labadiisa baallood uu baalna ku wato cudur baalka kalena uu ku wato dawadiisii waxay ogaadeen culimmadu oo daha laga qaaday in baalka uu ku wato cudurka ay tahay cudurrada bakteeriyada iyo jeermiska halka baalka kalena uu ku wato ama jeenigiisa kalena uu ku wato viruska la yidhaahdo bacteriophage oo burburisa bakteeriyada si kale haddii aynu dhigno waxa uu labada baal uu ku wataa jeermiska bakteeriyada dhalisa ama cudurrada dhalisa kan kalena wuxuu ku wataa virus disha bakteeriyada ku jirta jeenigeeda kale سبحانك يا الله يا أقوى الرمي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إن لبدي سجيني تقصي آن عدنا أركينين إساقو آن هايسانين ماكروسكوب وحكسو وينيو أما كباعين وحسو وينيو يا أقوى الرمي إن تقصي قاسي لبدي سبال وكوة مدنا عذر منا وكوة الدوديسين arrintaasi xitaa waxay kaliftay inay culimmadu dib u baadhis badan ay ku sameeyaan oo ugu dambayna ay baalkii dawada ay ku jirtay ay u adeegsadaanba in ay kula dagaalamaan cudurro fara badan oo ay bakteeriyadu dhaliso subxaanaka yaa allah qodobka labaad ma ogtahay walaalka islaamka ah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo tala bixin ahna uu inoogu dardaarmay حديثنا وحا صار إمام الترمذي يقيركي وحنا ورنا يا صحابي مقداد بن معدي بن كرب عن مقدام بن معدي بن كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقدام ابن عدي كرب وحا وري صحابي قاسي إنو يري وحان مقل رسولك ألا نحريس ينبجل يكركيسها أهاتي سقاله ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بني آدم مبوحيه ويل كشر بدن على شيسا بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه وحكفلا آدمه أما بني آدم كين هرموين يرير أو كتيرين أيام أو كستاكين أيو أبكانتيسا فإن كان لا محالة فثلث لطعامي هدي لغا ممارمان النقطين عنتو عنو وإن أتصدح ميلود ميل كدغتا عنتدادا وثلث لشرابي صدح ميلود ميل كلات كدغتا عبدادا وثلث لنفسه صدح ميلود كلانا وإن كدغتا نيف قاد شدادا حديث كان عجيب معجسة لياب كله علمي كفردية أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو كور رمي مدلقة شوغو كنيا فربق الله سنة كهر
waxaana dunidu maanta ay ogaatay in qaabka ugu wanaagsan ugu fiican ugu caafimaadka wanaagsan ugu saxada wanaagsan ay tahay inuu qofka bani aadamka ahi uu isu dheelitiro cuntadiisa cabiddiisa iyo neef qaadashadiisa arrintanna waxaa ku soo islaamay culimo waaweyn oo looga dambeeyo cilmiga dhakhtarka ama caafimaadka ama medicalka iyo culimo waaweyn oo kale looga dambeeyo nafaqa qaadashada ama nutritionka waxa loo yaqaano waxaa ku soo islaamay caalimkii weynaa oo u dhashay waddanka maraykanka asal ahaana ahaa nin yahuudiya oo la odhan jiray andrea will wuxuu yidhi muddo 40 sannadood ah ayaan waxaan baadhayay ansiimada ama dheecaanada caloosha jidhka bani aadamka uu soo daayo waxaanan ogaaday ayuu yidhi qaabka ugu wanaagsan ugu fiican ee ka hortagga leh ee dunida oo dhan caafimaadka iyo sixada u haya waxaan ka helay buu yidhi xadiiska uu wariyey nebiga islaamka ee moxamed sala allahu calayhi wasalam kadibna arrintan markii uu sii dabagalay wuxuu ogaaday in xadiiskani uu yahay mucjisooyinka waaweyn ee uu soo wariyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oo markaa maanta laisla qaatay in caloosha bani aadamka qofka caadiga ah ama normalka ah calooshiisa badkeeda ama masaafadeedu ay dhan tahay 1500 oo sililitir sidaa darteed haddii 1500 aynu u qaybinno 3 qaybood 500 waxaynu ka dhigaynaa cuntadii 500na waxaynu ka dhigaynaa cabiddii 500 oo kalena waxaynu ka dhigaynaa neef qaadashadii waxaana haddana la yaab iyo mucjiso noqotay in sanbabka bani aadamku marka uu neefta qaadanayo masaafada uu u baahan yahay ay noqotay 500 subxaanaka yaa allah yaa uga warramay xabiibka mustafa sala allahu calayhi wasalam arrimahan cajiibka ah ee bani aadamku iminka ay daaha ka qaadeen iminka un la ogaaday waxaa uga warramay oo ay uga timi xagga allah subxaanahu wa tacaala صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين intaynu walaalayaal barnaamijkeenan ma og tahay mar kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu